toddobaadkan iyo sahanka nolosha. dirir wuxuu guddoomiyaha tusayaa caddayn ku saabsan mooge iyo cabdinuur. guddoomiyaha jawaab ma ka bixin doonaa caddayntaas? haa guddoomiye, waxaan waa wixii ay bulshada ka mudaaharaadayeen. cabdinuur wuxuu mooge uu siinayaa waa shatiyadii sharci darrada ah ee kalluumaysiga. si fiican baan u arkay. dirirow, muuqaalkani allailehe wuxuu caddayn buuxda u yahay dembiilanimada cabdinuur iyo mooge. daahir wuxuu war lama filaana qoyskiisa uga soo sheegayaa Itoobiya. muxuu yahay qorshihiisa? waa aniga hooyo, waxaan kuu soo wacay inaan kuu sheego inay Itoobiya nabad timid. goormaad ka soo baxaysaa Itoobiya oo aad daaqsan imaanaysaa? hooyo, xoogaa ayaan sii joogayaa Itoobiya. maama cali iyo maama maryam waxay isaga hor imaanayaan arrinta carruurtooda la xidhiirta. maad gabadhaada la hadashid oo aad u sheegtid inuu cali guursan doonin weligeed? naayaa kugu yidhi waxaan u oomannahay qabiilkiinna inaan ka guursanno. annaguba qabiilkeenna aad ayaannu jecelnahay, mana jeclin ciddiinna xunta ee bakhtiga inaanba dhiig la wadaagno. aniguba sidoo kale ayaan qabaaye u sheeg gabadhaada inay joojiso xidhiirka. bal ka waran haddaad wiilkaagu u sheegtid inuu gabadheeda ka daba haro. naa waxaan ku weyddiiyey miyuuna lahayn qabiilkiinna gabdho fiicanoo la guursada? tan iyo kuwo kale oo badan kala soco riwaayadda xiisaha leh jimcahan saacaddu marka ay tahay 2:00 galabnimo, taasi oo ka soo geli doonta idaacadda Star FM, idaacadda codka gobollada dhexe iyo raadiyaha SBC. sidoo kale nagala soco barteenna Facebookga. ciwaankeenuna waa sahanka nolosha. waa inoo iyo xilligaas.